axmedow sida lagu daabacay baraha bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo warbaahinta kale ee dawladda ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka maxamed xuseen rooble waxa uu khadka telefoonka kula hadlay kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika arrimaha ay ka wada hadleen waxa ay warbaahinta dawladda ku sheegtay inay kamid ahaayeen xaaladaha siyaasadeed ee tan amniga iyo doorashooyinka dalka faahfaahin inta ka badan lagama bixin waxaadna ogtahay in khilaaf baan uu ka taagan yahay arrimaha ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya sidoo kalena ay cirka isku shareertay khilaafka u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya iyo ra'iisul wasaarihiisa sidoo kale Mareykanku dhowrkii maalmood ugu dambeeyay wuxuu aad uga walacsanaa xaaladda isbedbedelaysay Soomaaliya xalayna xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken waxa uu arrimaha Soomaaliya kala hadlay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta Anthony Blinken wuxuu carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay sidii madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay si degdeg ah ugu soo afjari lahaayeen doorashada wuxuu sidoo kale sheegay inay ka wada hadleen madaxweynaha Kenya sidii Soomaaliya looga qaban lahaa doorasho xor ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu xusay in isaga iyo Uhuru ay ka wada hadleen sidii dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya ay uga hortagi lahaayeen talaabooyinka iyo qoraalada horseedi kara xiisadda madaxweynaha dawladda federaalka ayaa maalin ka hor laba maalmood ka hor waxa uu sheegay inuu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaaruhu uu ku gacan saaray taasi waxay keentay xiisad labada mas'uul dhexmartay oo mararka qaarkood ku sigatay inay gacan ka hadal isu bedesho laakiin waqtiga wixii ka dambeeyay waxaad moodaysay in xaaladdu ay soo degaysay oo ay sidii hore ka duwan tahay inkastoo weli khilaaf ku taagan yahay Axmedow khilaafkii inuu taagan yahay bal carabka ku dhufatay Ibrahim bal hada dadaaladii socday ee la doonayay in khilaafka qudhiisa lagu soo afjaro dhex yaala madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu halkay marayaan isku dayo ay sameeyeen xubno ka tirsan golaha wasiirada oo uu horkacay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed ayaa shalay jiray dhowr jeer waxay la kulmeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha inkastoo wax natiijo aanay kulamadaasi ka soo bixin haddana wasiirada kulamada ka qayb galay oo qaarkood BBC-da la hadlay waxa ay rajo ka muujiyeen wada hadalladaasi laakiin dhinaca ra'iisul wasaaraha waxa la sheegay inuu ku adkeysanayay in arintu ay tahay in isagu uu mas'uul ka yahay arrimaha amniga iyo doorashooyinka isla markaana ay tahay in uu madaxweynuhu faraha kala baxo arrimaha doorashooyinka sidoo kale shalay waxa magaalada yimid madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariye Qoorqoor iyo madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen labadooduba waxa ay isku dayayeen in ay arinta xiisadda ee magaalada ka taagan xal ka gaaraan oo ay dhinacyada arkaan laakiin ilaa hadda ma suurtagelin in ay si kafool madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isu hor fariisiyaan ama ay dhinacyadaasi la kulmaan inkastoo kulamo dhowra ay qorsheysan yihiin saacadaha soo socda Axmedow Ibrahim saakana waxa jirtay banaanbaxyo ay boolisku ka hortageen magaalada Muqdisho mahal hadda faahfaahin naga sii banaanbaxyadaasi waxay ahaayeen iyo cidii soo abaabushay degmada Hodan ayaa tiradada ah oo isu soo baxay oo uu ku jiray xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ah wasiirkii hore ee amniga Galmudug waxa ay sheegeen inay uga soo horjeedeen madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo dadkaasi isu soo baxay waxa ay ku qeylinayeen erayo ay ku diidanayeen madaxweynaha laakiin sida ay sheegeen hogaamiyaasha mucaaradku waxay sheegeen in banaanbaxaasi markii dambe ay soo farageliyeen ciidanka booliska isla markaana ay kala eriyeen waxayna cabasho u jeediyeen wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Nuur oo arintaas ka jawaabayay ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in ay soo gaartay cabasho ah in hay'adaha amniga gaar ahaan booliska dalku waxyeello u geysteen mas'uuliyiin iyo shacab ka qayb galaya isu soo bax nabadeed waxa lagu sameyn doonaa buu yiri baaritaan sida ay wax u dhaceen waxaana shacabka iyo mas'uuliyiintaas u xaqiijinayaa buu yiri in aan marna la aqbali doonin in saraakiisha hay'adaha amniga ku kacaan falalka lagu soo eedeeyay waxaan sidoo kale ugu baaqayaa buu yiri shacabka in ay istajiyaan lana ilaaliyo xasiloonida caasimadda mana la aqbali karo ayuu yiri wax rabshada marka isu soo baxaasina barqadii maanta ayuu ahaa Axmed